markay levelka noqoto diyaaradu kor u kacdo waa inta cimrigaaga dhaxda ah hawada markii la tago buskud baa la cunaa waa la socono baylka la iska furay wata hawada waka rag iska celinaaga banaanka mari waka waxbaro rag iska gubeysi ka waka 200 meel markay u jirto diyaaradu garoonkii ama 500 qof walba kursiga ku noqon loo dhan baylkana waa la xidhan kolba tartiib ay hoos saasi saa anaga hadda taayadu taayiradii bay la baxday taayiradii qolada hawada ku jiray kuwa si fuul midna shaqada nooma laakiin furayaal badan ma wadana fura badan oo qoliyiinna u baahan hawada ku jira shay walba taariikh baa laga reebaa wax hore igu dhacay aan ka calaacalayay tan damba iga dareed aniga marka la hadlayna maxamed siyaad barre aan gabaygii geedigii la ray u tiriyey wuu ooyey nin Soomaali ahaa ilin baa ka timid waa run buu oo maxaa ahaa gabaygu sifu ahaa kan wiilku tirin oo kale kuma tiri kara gabayaashii geedigii la raray hawlihii gubadka loo jiiray gindhid iyo raggii gooba iyo gooro kor u dhaafay diri goonyaheedii waxaan gariga leedaynay gool uma qalaynina waxaan garowga ruugayna garowga gabal dama hameenko gamyida gamashiga dayrta gudgudiyaha laax soo kaciyo garame xoogowday birga cirgambiyan gufaaciyo martinid guuya hay sooray gurmagoan galool foodiyay iyo guri u reer yaalay qasax gibina goys kaynbil ala garow cadaad yeeshay Soomaaliga haduu idin ka weynaada raaliga hada waafka nagdaadanadii gurmagoan galool foodiyay iyo guri u reer yaalay qasax gibina goys kaynbil ala garow cadaad yeeshay kala gaari maaye gag iyo geeda xaran feeshay laaga doonti wali guuxay iyo gab iyo xaas jeefo anagoon isgaradan waxaan goor mugdaa jeernay wuxuu gayso libaax geesta naga raacay qurxankiisa goortaan maqliya gaalmadii xaasha waxa ay gadoodeen nafti geesta qaba weeyday een marada gaabsaday sidii geel la shubi doon garbuujo iyo irtood iyo xarkaan la garanayn waa afruush raallahu waa xarkaan miinada lagu dhigo miinada xarkaan garbuujo iyo irtood baa leh ragii kuuriya ninka dhafoorka xiran aabii wax soo baray baanu ahayn halka nina anagu saddex xabadood midba meeshu rabu kaaga dhufan jiray Ethiopia waxaanu ku jabnay shiishbaha iyo meeno garbuujiye irtood iyo xarkaan la garanaynin gargaariya waxaan meena dhigay goor la wada jiif anagoo gurgooran waxaan gacan ku aasoonay rag meena dhigaya ilma hadlay gudgududku waa bari waxa lagu galaal xooray gawaadhidii la soo diray wuxuu ololku gowleeyay soo huraalyaal iyo maal arag waxaan ku gubnay geetay wuxuu u lahaa gadhka iyo haystay kol uma garaabin waxaan soorka sii galiyay waxaan gaas la soo diray ku wadi kaligin googoosta gacalaan marka ay galgalatay ee kuftay ee la isku gaagbeelay dib u gurashadaydii markaan goosta nidil waayay waxaan golongole dhuubtay goroda laalaajay ee gobo ka siiyeen ilmada horseegooy galshadiga goob lagu rogmado geesku idlaaday moraal gaabtay gaajiya raad dididku gowlayni guubaabadeedii waxaan galab u qaadayay gujiyay waxaan lahaa goolkiiba haray waxaan isku waabiyay geelti ka ururshay rag hore uga dhamaaday gonfi iyo badal iyo ablay guduma xiriiraysa bir la gubay gamaan xalay la dilay sida garaaraystay guriga dumay gidaar soo rogmaday fooqya kala guuray gaal uur la soo dhahay gasheen gaban la soo dooxay nafangu iyo gariir taa ka bixi galalafka yaabtay gaardii ciyaar waxaan ku maray gool intaan dhalay guri iyo sidii maxamed baan ugu gadaanaa guuliya barwaaqan lahaa isku gaadhaan giiryaalihii cararay iyo inan gandoofaarle giiryaalihii cararay iyo inan gandoofaarle
niman gacal awowgii wax siin gurina soodin golidii dawacadii fadhiyaani gadaashayda gandiya taqsiba waa jiriye geed xun oo idil inkastoo guracayo midka dadu ka guuxayo gowlaliya gurraba waa jira guulahay magan gamaarayda oo intay fadhiyay godada hoosteeda maaniga gadaal iyo fiireer wax iga gaadayay la Soomaaliya dhabar jabisay xabash waa ka adkaaday war maanaha gadaal fiireer wax iga gaadayay gurigood baa nimanku waa gaala kaadeen garadii waxay doonayeen googol lacageed waxa la igu galiyaan waxa xaajo gooni ah waa garangarti wiilashii gada wadaameed waa googa cadanaysi leeyla gobolay goday iyo gayiga loo degiyo xaraxun geesteeda xilki gowla laaliye gabriye miiro gudahooda gumaray gargoorka dushiya gowga iyo laago garastay guryaha yeelay iyo goolla iyo qaali gol dulaan garaac iyo inta geeska cobaleeya tayaaradka guuxa wuxuu galab isdaafayay garnayl iyo wixii foostaweyna lagu gowsiiyey gaban fiigay oday gaabiye habarku xuushowday geel iyo waxa ari ku go'aya gam laga siiyey anagii leeyahay balleetan iyo goortii wargeedo gar waa loo dhinta goob la joogaba waa maxamed siyaad geedo ninka la hadlay wargaalada raggii jaray maxaa godabta weyn saaray anaga hogaamiyaha oo dhan baan la xasuuqo la xidhay labaad jirow walwaal baan lagu riday meel cadcad laga arkay saayagu isugu sharfaan markaan xoreyno wadankii saayagu isugu sharfaan wargaalada raggii jaray maxaa godabta weyn saaray maxaa gool cadaan soo qale gulubi noo dhibay gulubi watan waa lafta dhuunta umbaa la qabsada Soomaali galbeed waranaga baa urka soo qale meeydu taraadeen maxaa gool cadaan soo qale gulubi ii dhibay guga daay maxaa maatadii garowga loo siiyay maxaa gool saweyro libax goodir kaadkay maxaa gorayaheegi ka furay lagu garqaadayo war gabadhii ninkeeda maxaa garabka weysii gabadha garmaysaana waxaan la hadlay waa rag وعبد الرحمن ليس قبل محمد سادس قبل والله ألقى كل شيء أنا جينا بورد بقول بأن الوقري والقبل إنك هذا مع قرب كويسي أو مع جس بعيد كور مع اللوجا قرماي أو واحد أنقرك كور ركب الله مجن يري كار كيبا أي مري الروح قال أنا مركز سكر كوي مرة الله صعب لا ما لك أي صوت هوش إذا كلي يسمود waxaan cadaaday baa marka ay maray magan yare garkiiba ay maray ruux galaanahay gidigiiba hadalkii marka la isu wada geeyo alla maxaan gugayga yare gobada ku sheegay gabal noorda iyo cadada gibilka taagnaaba in la xasuuqada dabco leeyo soo xarayo kii ugu dhacay sideedkii oo kale kuwayna daamaray hawaas baan mareynay markii la yiri saddex nin baa la kireystay oo Soomaali ah oo kuma waa Caydiid Cabdullaahi Suuyo Caliya iyo Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan Tuur oo maxay la tageen nin walba 200 kun oo ciidanka Itoobiya haye 30 kun oo reerkooda oo dhafarqiiq iyo mujaahidiin loo bixiyay waxa lagu jahadiyo waa laga ogow halka wax jahad ma oolin xanuunada la gaaray iyaga caruurahooda way soo reereen oo degmooyin baa la dajiyay ilaa xarshin ilaa daroor ilaa halka alla dadkaygu gabsana meel cabaad laga maqash waxa lagu leeyahay Hargeysa iyo meel ba lagu dilay waa ciidanka Itoobiya iyo mujaahidiintii xasuuqaysa qaxootiga naga boqol iyo konton iyo 200 oo Soomaali galbeed iyo caabudla lagu dilay diiwaanka waxa ku jira UN-ta waxaanu iska hadlaynaa ma asagu saal gabadha ma keeno miyadoo in laga maqashay Soomaali galbeed shib 12 kun baa banbalaayo wabiga la raaciyay waa walaaladano waa raggan ugu tagnay walaalnimada iyo islaamnimada dhabarka gelinay xabad bay noo quuray wabiga la raaciyay faarax gubadley Cabdullaahi Yuusuf Galdagob ayuu sideeta ku dilay asagana sodon baa ka dhimatay mingisi baa waa imisa aniga sideeta ma dilay ba xoog dalka aantees adiga sodon dhimir andilaa isku darbuy maxad kala qaadi buuri indhaha lagu dhuftay kateerada lagu tuuray dad baad ka dhalateen goba oo nikaax ku dhashay macawogina horaana sabaha waadna ku dhiman doontaan iska beliifaan maaha qofka hadduu dhiqaanaa yahay oon hooyadii la meherin weligii gaalku daba socon nikaax xalaal hadduu ku dhashayna weligii lagu kari maayo gaalo xaqiiqaan idiin sheegaya maxaa shalay ugu dhacay kayma kaa gabigii maxamed siyaad waxaan ku dhow gudcon naga rartaa iyo hadhkii gibilka taagnaaba gabal noo ridaa iyo caddada noo gurgurisaanba markaan guuro geediga xagaa kuu gar weeyaan wala naga damayn maysbaan ma dawlad baa naga damaysa
markii saaxib wala keen soo dabac raabay balagana gantaashi rag gumarta hoosjiif oo waayo dhibka Soomaaliya waa labada waan cabuurayaal iyo naarafufayaal ana waxba been ma sheegno Soomaaliyeenta kale waa farta ayadoo isku duuban baa hawaas baris markii saddex la karaystay waliba ka waa la khalday 12 kun ka wabiga raaciya ciidiid cadabo ma qabno waxay ahaayeen nacabuurayaasha siyaasiyiinta Hargeysa iyo naarafufayaasha Puntland labadaas Sayid Maxamed iyaga ma weeraray 25 sano markii Sayid Maxamed la dhaqaajin waayay labada ama 12 kun oo waqooyi iyo 12 kun oo bari ah 23 kun baa lagu weeraray waan soo gashay waan timid oona la faabaxday Tigreeba xaro la leekaysi xaro hal nin oo Tigreeb kor baxal la waay ciidanka ay ku laayaan wareer wiilashadii maalinkii Sheekh Ibraahim Leeri intii ka dambeysay Oralef Tigreeb waxa ka dhigtay bisad god ba ku subtay shir baa la fadhiistay idinku meedaan ogeyn Cabdilmajiid iyo Malasi iyo laba nin oo kale yaa fadhiistay iyo safiirka Ingiriiska هلا سمية اللي معاه سمينا تقربوا بحلا يعني الماضي تلاح ويروك هلا سمية اللي نجيب بورس كمان كاس الله أساسي إلا ما أنتنا العقد وحاب حيا إنجليز ما ذو كويا نيو بورس سنم كوير عليها سنمك وده اللغوه يو هذيك كواردية هل ويل وان وايو سنمك فتلا كقلو قالوا وتحق شو قبه والله قبلها نقرأ السوق اللي قول لي تعالى والله وما بقول ويلو ولا تلوي العب هلكم كصبح لهي ما أنا العربتي أنا بكوك الرساية عمرك وما دارس سكير عليه فل النمط بخيل نمو بالفر فل النمو والمارس كذا قبل يقول بقى هل قبل هذا النيجيري واحد سبس أنا لف بقول لك كيسي هل درا اللي رجي محل قلت سبي أولا لف كنتم كل ونيجي بورس هوست على كعية فولكان نيكلياس ولا كنو سبع العمر قال لي شم بقول بسودي بشم بقول وأنا لفبول ولا كي سمعلان بقول يا كنتم يلا بسودي بس ولا كي وتعالوا صوت بس لا أورتي قبل هذا عروت هذه وأقول سامين ولا الدمالي ما كل الكرو برجو بدودة فردها فولي وحول بوالله قراه دوانا الله يا صدق يا تبيك بدحوير الكودوين بالله يا دول وحقفتي ماني اللوب إنه ما يرسم تاريخ وتاريخ اللي اللوبين بطل عندنا وحي سوديبتي 19 يتضبع الرسوم والشر روس مريب وحي سوق قور عدي تضبعتني السجال تمدح كقور عليها الكادكتي وولدته بدروا قروين ملسي كقصي وانا ملسي كقصيالي يا وسرا وتا شغلان دوني شغل وتابو كيف فدرالك ها الصومالي ودو دارتي انه مدحوينه u yahay مجاهد رقم كل شيء ولا مجاهد مصبح مجاهد معاها هبل مجاهد معاها كان وهذا مجاهدين مجاهد فرماتو محو نو سميه دولتي بو فريسي انا لفوا ارقق حسب ninkii noogu qoona badnaa qalbi dhagax baa intii la soo qabtay ayaa la keenay saddex maalmood qalbi dhagax ma wareysatay saddex maalmood oo joogay xamar jab rooti ah iyo koob shaah la siiray waa la soo qaaday 30 sano dadkii u dagaalamay goday baa laga stajiyay asoo ka tiinadaysan oo kastuuma qaba kastuume waxa ku duldantay 25 dhilo niyu boolisa iyo 22 khaniis oo niyu boolisa waligu wala waaka tuugi waaka laadka ay ugu daraabeen gabdhaha ha ku qos waa wax kugu dhacay nabarka ku dhacay inagoo dhan bay ugu dhacay qodasaan buuri ma ku waraad u dhimanaysi ma dal baad leedahay ma dad baad leedahay ma ku waraan ku u dhimanayso soo darsano أرسل لي جيبون نقول قصته كلام عن نقلب كوا عن ضد خذي حسوقات تكرجها حبل عن تيرو بوحدي سيمون لكن هو يقبضني كل إنسان حوله يلبون بوم بندوري أنا بنام تدابته أنا كوكو نحفظ سي مذوق كلام ماله تيران كرواي وحصوت تيري بودحلنا ومار مورال كيسو علي
أحمد مذوب أردية يا وردي صوت شريبول حقا كيمت نصعب عن سكول الجنين بول قالك وحكد أيوة إلين لعبت أنتوا جرعوا يربول مقتل ظاهر حمر بلغ سعودي بي شنو يلا ما تصهر والله حلي صومالي بين واحد سعودي بعدنا صومالي بقى سعودي بتي نبكى وين نقبنا عد كيسو مورا الكباب يسول الغضيب العقبة أنا ويدي بي هداد موادي إن يعني اللي وصلنا هي هل قف الصومالي قلبي هذا موجودين يوهي ما ترى أنت أنا قلنا القصة واللي بيجوا لنا ولا لنا iyaga baan leenahay walaalanahay maxaan ugu anjabeynaa 120 milyan oo kristaan aan la dirreena siyaasiyiinta Itoobiya way ogtahay inaan walaalahayn way ogtahay laakiin shacbiga Itoobiya la dirray walaalaha iga dambeeya walaalo waraabaha iscunaya ayaa walaaliya waxaad yeeshaan kuwan dilaaninta Soomaali maxaa helay hadda maxaa qaybiyay وعاقب يقري يا قبيل قاد يقيق قبله يا قبدن قرب تشوق قال تشوق انت ساقيب الصي بدكم تشوق صدق نبا سي حكومه كيس فله اقويان جاهله يا عاقل دقونه لحلا هوري سي حكومه واقويان صدق سنة عمرك سووا داريد وحبرني بيش اللي بوتها إربط ما سمين كرو إربط ما حد سمين كرو إربط بجاج ما سمين كرو مايا باسكيل مايا كوكا مايا مايا لا بقى يعني ما كان علي كريس كده على بره أسرع محبوس مسخوش أنا وحلق لي صوفتي فرعنا صابون بكل دقيق وأقول ديننا ما يقال دقنا ما يقال ديننا ما يقال دقنا ما يقال وحسوق يا العقو حضو إن ما رأي الله قدقوا يا قاسمة شأنك وين بطمان كوب كعبي وحسوق حلقة صباح نوبر ما وضع مصر وبيه يشتري من وأقول يا جايلة مركي اللودي من أبو كجارس اللحم لون قاعد عض يا جماعة عض يا جوري عض صدق ومكجارس كجارسي كاسوا أقول يا جاهلة عقل ضغنا غير لما مع لحواها كل بني كبور تافولن بوت ولا أنت وهرطن يقول سبحان الله يقول له ريه ولا أنا طوخه ولا أنا ضمن إن النهل وحلا يا متي ومساسها هذا ملح لما يستوقتنا وكوي مستعمر قصامك عاوي كوا دورتي ما حسن جيرو ما تك دورتي أنت كلام الركبة الصوت درو كاني ماشي واحد كله برلمان يجاو كيبو أنتوا توكورس ولا أنت من نوع جيس فله يهو هدير هرو إسرائيل بقول بوتي لبقول حق على الورقة خدي لنا حاركو حارك الصيل حفاظ مقبع أنا كانت ذات أكون ورد بلنا كريستال كانوا قراعني ما يمين حقها أنا لفتي كني باوقع أنا حفاسي عيالك حفاظ قبعا واروح هذه يا شاهد كرونك قيامها أنا وادويه قبني باتين قبل دشي باتين أنا واحد لو يفر المتجر أمانة هاي عاد مورالك قول استين وين دالنا كوب يتوان حبضوا اللحظة ورد بايقول يال أمر داين كنين النجا انتوا يم بتبغول خبر قال مورن وهاي الرجع وحقيقة بالله ورد الدميه الاستيرك ما قبل والرجع أنا يدير يوم ما كنا مرقول من الناس كو أنا لا تدير يا بانو من وهذا كله الدار مياه دتك هذين تلمامه يو كعررة هاي سليبينا بعدين كلا صعد مردمتو ولا قال ولا شانال ما أدوق ملي ولا أنا قال هاي ناشا بيجي يقولوا لي لا أنا تبصوا هدويا لسه المستعمركو تركوا أسطور عراك داتسه سيد الشر بعد يشان وقبل هذا المال مدة هذا أولياء بالتيم بوحكي على الأركي لما كنت تقرأها واحد وجد السبي وحيانا عن الشيء اللي نباشره waxa lagu sameeyay mustaqbalkiisa kuma sameey aniga reerkanagu wuxuu ooyaa waa masar oo kale masaarida qayb awooyay fircoon hadaa tagto kuwa fircoon ka dhashay waxay ku oran wallahi hurda weynida ilaahay anaga waan ku ogeynay markuu soo tooso ta ka dhacday la yaabi masar la yaabi aniga reerkanagu wuxuu ooyaa cabdiilay أنا والله تكلع مركو صوبه سيجا كعلم لياب بحقيقة
anigoo ayniga intaasoo yaa suuqa laygu garaacay sacab bay ku dhufteen baga waa kii dawladda nadriday odagana fishaarka baga loo garaacay hal dhinac cadhoode xataa mayan lahayn yaa waxaan kuu sheegayaa waxa ana iga degilaa waxaa la qorayaa rikoodh weyn 27 kiiso cabdi ilay galay yaa meelaan ku qoraan laanahay waddanka afoodin meel fadhiya in la fadhiyo 27 kiis baarcad gabadhi baarcad lahayd baa kowka baarcadoo ka tiiradaysan oo mayda oo kaaramarna taala dhakhtarka sariid ku ka tiinayo wiilkii maxaa war wiilkiisa xamse oo naaska mayda nuugayo meelaan ku qoraan lahay fircoon xataa ma samayn waxaa kaloo meelaan ku qoraan laanahay saddexdii gabdhood oo xubinta taranka fircoon xataa ma samayn bacda lagaga dhalaaliyo ilaa hadda yaalla waxaa meelaan ku qoraan laanahay rag kula dhashay oo halgamaa oo la soo laayo meydkooda la jiidayo lagu dullaantaynayo oo faydadu ku ciyaaray tuuga ay leedahay suuqa meydka lagu jiidayo ragga dag waxaa meelaan dhigna aan laanahay marwo la yaqaano oo nala dhalashay oo ninkeedii nafta loo keenay oo cararo ninkeedii nairobi tegey oo intii loo yeedhay 4 tuug oo new boolis oo shaalqayaala la dhex keenay qolay ku qaylaysay oo calaladii laga dhigay waa la yaqaanaa idin sheegi maayo oo 60 kun intii la daadiyey la yiri ururi oo gabadhii kolle sii jeed lagu sawiray kolle soo jeed waxaan cabdi ilaahay in khaniisiintii new booliska igu sameeyay ma jiro Ethiopia kuma sameeyay ama u barooro oo ilaahaga han noqdo miisto noqonin toddobaad kaagama warrami karo waxa ay gaaray gabdha uguba oo qaali ah oo kuwa afka madooba konto kooladanu sii jiray yaa naasihi leego iyagoo taagan naasihi laga jaray alla inaadeero meenaadeerka diyo naasa ka goyn la waxa soo dhan tunugu dhacay yaan wali nool waxa deeshaan iska ilaaliya jaajuuska annaga diyaaradda nala degayso waa kaadii sheegnay waxaad iga daba qaadi heestan haddii la ilmo waan qaadayaa madaxaagana geli waxaan ka hadlayana garo miyaa qadayseen codkiinu ma soo bixi karaa nacaska nacabka dabagelaya dayriyay nacaska nacabka dabagelaya dayriyay doqonka shilinka doorka mooday daldalay doqonka shilinka doorka mooday daldalay duunyadiinna dahabka aasan daafacay diradiraale duul walaala isku diira isku dooda isku diina kala diraaya kaag durkaay warhooy diradiraale kaag durkaay nacaska nacabka dabagelaya dayriyay doqonka shilinka doorka mooday daldalay dib u dhiciinna ruuxii doona ku dilay duunyadiinna dahabka aasan daafacay diradiraale warhooy diradiraale duul walaala isku diina isku diira kala dilaaya kaag durkaay warhooy diradiraale kaag durkaay waxaa bay igu ficlaan lahayd ragga oo dhan oo saaxiibaday baan dhacay waayo waan marqaamay waa idinka ay moraal galiyay waxaba laga yaabaa inay gobonnimo inoo qaadanay aan gaadho oo idinkoo insha allah dhaanteen in amrigayga ilaahay i dheerayo yaaba laga yaabaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh